qoraal ay soo saareen sirdoonka waddanka Ethiopia ee loo yaqaan NISS ayaa waxa ay ku sheegeen inay gacanta ku dhigeen 2 container oo ay ku jireen hub kuwaas oo ka soo galay dhanka waddanka Jabuuti sida ay ku soo warantay warbaahinta dawladda ee Ethiopia ee EBC loo yaqaan. qoraalka ayaa waxa lagu sheegay in hubkaas markii si hore ka yimid waddanka Turkiga uu muddo 5 bilood yaalay deked ku taal waddanka Jabuuti kadibna uu si dhow Malaysia loogu soo geliyay waddanka Ethiopia iyadoo loo ekeysiyay alaab elektarooniga. Ethiopia waxay sheegtay in ay gacanta ku dhigtay 24 qof oo looga shakisan yahay in hubkaas ay wadeen qaar kalena ay ku raad joogaan. Haddaba eedeyntaasi hubka uu Ethiopia Malaysia lagu geliyay dhinaca Jabuuti ka soo galay waxa gaashaanka u daruuray Abubakar Umar Hadiye oo ah madaxa marsooyinka Jabuuti khadka taleefanka ayuu igu waramay. wallahi arintaas waxay ahayd wax anaga nagu soo booday xalayto waxaan la hadlay Master Roba Bergesan oo Ethiopian Shipping Line ka mataqaana gudoomiye oo ka yiri labada container number kooda isi marka waxa weey marka container la soo diro waxa weeyaan laba nidaam baa lagu soo diraa midna waxa weeyaan multimodal waxaan u jeedaa badda iyo dhulka inland transportation Ethiopian Shipping Line bale midna waxa weeyaan unimodal oo ninka containeradaas leh wuxuu leeyahay war aniga ii soo dhiga boorka Jabuuti anaga u diranayna mataqaana transportkii inaan train saaro truck iyo ciidan doonayo kale iyo adeeg Roba markii aad su'aalahaas weydiisay oo aad la hadashay muxuu jawaab ku siiyay waan kugu soo noqon biyay waan sugayay maanta ilaa saacada waan sugayay marka ciid baa mataqaana furtay LC-ga letter of credit oo bixisay foreign currency Ethiopia ka saartay oo banka laga heli karaa ciidii dalbatay alaabtan iyo ciidii lahayd xuduuduna ma aha dekada Jabuuti marka in Jabuuti lagu soo tuuro oo la yiraahdo Jabuuti waxa lagu soo deysay waa khalad hadii martay dalkooda oo dhan 930 kilometer weeye Jabuuti iyo Addis Ababa marka alaab iyo xoolo gali kara Ethiopia ma jiraan customs bileeyihiin waxa weeyaan Jabuuti gate-kii pork sidee u dhaaftay su'aashu ma sidee Ethiopia oo dhan martay weeye su'aashu waxa weeye maalin kaste dekadaha Jabuuti waxa ka baxda 800 oo container ba maalintii ka baxda oo railway iyo la saaraa trucks oo xagee Ethiopia tagan marka waxaan doonaynay inaan ogaano labada container oo laga hadlayo numberkooda si aan u transferino ilaa maanta waan sugayay containeradan marka ma waxay ahaayeen kuwo dekada un ku ekaamisay Ethiopia ayaa lahayd ilaa iyo gudaha inay u gudbaan hadday tahay multimodal gudbinta badda iyo dhulka bayaga ta kale waxa weeyaan LC baa loo furay containers waxa aan lahayn LC Ethiopia ma galo marka cidda dhigtay lacagta oo ka bixisay containera lacagta Ethiopia oo ay galabsi ku tahay mataqaana foreign currency baana koogun baa laga heli karaa yaad leedahay marka lacagtaas uu bixiyay maaqan waxaan sugayay imika container numbers baan sugayay ilaa xalay idinka ma baarteen waxa ku jiray containeradaas inagu waan baarnaa waxa la yiraahdo random system hadii kale shaqada ay xayrmaysa marka way dhici kartaa in wax dhaafeen laakiin iyaa dalbaday waxaas iyaa lacagta bixiyay yaad su'aashaas weydiinaysaan soo idinka ma inaad ka jawaabtaan Ethiopian Shipping Line baan weydiinaya xogtaad idinka haysaan kuma jirta miyaa marka cidda lacagta bixisay cidda la baxdayba ma hayno anu markaan helo container numbers iyaan dib u raaci karaa meeshii laga soo raray iyo wixii oo dhan shixnadan Jabuuti waxay taalay muddo 5 bilooda marka muddadaas ay taalay idinka maadan dareemin miya sababta ay containerada meesha u yaalaan containera jira 10 sano yaal oo Ethiopia ku socda oo halka kaga tageen oo leeyihiin xaraashin waliba waxa leeyahay containeradaas waxa ku jiray ilaa iyo 18,000 oo bistooladood iyo qalab kale oo military marka waxa la isweydiinayaa idinka sidoo ku ogaan weyseen anagu waxaan sameynaa random checking container kasta ma scan kuma sameyno hadii kale waxa weeyaan qiimaha transportka ayaa kor u kacay marka waxaan dhaafi karaa laakiin dalkii dalbaday ayay su'aashaas u taalaa waa tahay kaasi waxa uu Abubakar Umar Hadiye madaxa marsooyinka Jabuuti khadka taleefanka ayuu igu waramay